dowladda hoose ee South Africa ayaa waayaha dambeecadu ku noqotay ganacsiga shacabka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gudaha Koonfur Afrika iyadoo bilowday ole looga hortagayo ganacsi ay u yaqaanaan inuu yahay mid sharci darro ah balse lafdhabar u ah ganacsiga shacabka Soomaaliyeed ee ku leeyihiin gudaha Koonfur Afrika. Howlgal ballaaran oo iska kaashanayaan booliiska 19 gobol ee Koonfur Afrika ayaa saameyn xoogan ku yeeshay suuqyada waaweyn ee loo yaqaan marka magacooda la soo gaabiyo GB ee ku yaala magaalooyinka Johannesburg iyo Cape Town. Somali Channel oo gaadhay goobihii howlgallada ay ka soconayeen ayaa waxa u suurta gashay inay sawirro ka qaado qaabka booliiska ay u qaadanayeen hantida shacabka Soomaaliyeed ay ku ganacsanayeen iyagoo aan u aabayeelin shacabka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah dalkooda. Suuqyadaasi ayaa waxa lagu iibiyaa dharka nooca loo yaqaan magaca oo inta badan loogu talagalay in kabaniyada waaweyn lagu iibiyo balse Soomaalida ay ku iibiyaan suuqyada caadiga taasoo ay saraakiisha booliiska ay ku tilmaameen mid ka fog qaynuunka u yaala dalka. isku soo duub howlgalkii ballaarnaa ee ciidamada booliiska maanta ay ka fuliyeen suuqyada GB ee ku yaala magaalooyinka Johannesburg iyo Cape Town ayaa noqonaya midkii ugu ballaarnaa oo ay sameeyaan ciidamada booliiska nooca loo yaqaan matrada. Abdullahi Balwan, Somali Channel, magaalada Johannesburg.